garonkale sacab loo garaacay sacab loo garaacay Shabeelle guud بسم الله الحمد لله والثناء والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bisha afraad 2021 waxa ilaahay mahadiis ah oo noo suuro gashay inaan helno garoonkii ugu horeeyay oo dhalinyaro Soomaaliyeed aabusha ay hesho oo ay sameeyso oo Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo African Indoor Soccer Sports so waa mahad ilaahay noo sugnaatay koowaad tan labaad waa dadaalka ku bixin dhalinyarada Soomaaliyeed bahda sportiga iyo ganacsatada oo isbiirsaday wax walbana waxa muhiim ah sportiga sidaan ognahay waa ahmiyadiisu xitaa isdhexgalka bulshada waxyaabaha laga hortago waxa kamid ah cuqdada qabyaalada midnimadiidka waxyaabahaas oo laga hortaga isukeenka dhalinyarada isfahamka wada noolaanshaha bulshada kaliya ma aha integrated marka laga bulshada anaga aan nahay kaliya ma aha waa kuwa nagu xeeran oo hadda la nool si South African joognaa Cape Town aan degannahay
dadka nala degan oo Capetanianka ah iyo waliba kuwa kale oo foreign nala ah anaga sideena kale ah isdhexgal laga baahan yahay sidiisana waxa ka mamnuuc isboortiga caadifad wax la yiraahdo alxamdulillah dad badan ay dambeyn doono hadda waxa la igu doortay macnaha ereyada u wareena ka soo jeediyo aadan u mahadsantihiin maadaama macnaha aan ahay khabiir isboorti dadka hadda joog marka loo eego mahadsantihiin bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bisha afraad 2021 waxaan daah furaynaa indo soccer-gii ugu horeeyay Soomaali ganacsato iyo dhalinyaro isugu jira ee halkan maalgeliyeen ay nooga fureen waa guul u soo hoyatay dhammaan bahda isboortiga reer South Africa khaasatan reer Cape Town waana macnaa isheeg arrin loo baahnaa waqti hore in la qabto dhibaato fara badan dhalinyaradu iyo dadka macnaha isboortiga eelka oo ah ay ku qabeen in meelo fog iyo garoomo macnaha isheeg in loo aado oo kharash lagu bixiyo fara badan waa ilaahay mahadii maanta hadii la soo dhaweeyay dad walaalo Soomaaliya ay u kaceen garoonkan quruxda badan halkan aan ka helnay saadarteed aad iyo aadan macnaha ugu faraxsanahay waana arrin maaragtay isheeg lala soo daacay aan leeyahay karaa waqtigeeda wax walba dhacaana maanta ku soo aaday waqtigeedii saaxiibkay Xasan macallin duubane ayaa warkii oo dhan dhameeyay isboortigu inuu yahay isdhexgal bulsho waxa loo baahan yahay dhalinyarada u yahay sheegeen waxa uu wanaagsan waqtiga ku dhumiyaan jirkooda ku dhisaan qofku markuu jirkiisa dhiso maskaxdiisa waa dhismaysaa waxyaabo badanna waa ka reebaysaa markuu isboortiga ku xiran yahay waa ku aragnay wadankan dhalinyaro fara badan oo anaha ku wareeray ku stressay qaar balwadii la tagtay waxyaabo oo dhan ka hortaga oo aad faa'iido u leeyahay waxyaabo badan marka meeshii marka ku habooneed ee dhalinyaradu isugu imaan lahayd ay waqtiga ku qaadan lahayd ku tababaran lahayd ku train gareyn lahayd hadii la helay oo Soomaali ay macnaha noo maalgelisay aad iyo aad waa arrin wanaagsan waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay qof walba ka warhayo Africa Indo Soccer loogu magac daray Africa Indo Soccer waa uu furan yahay jaaliyada Soomaaliyeed dhamaan macnaha intii ahal isboorti ah cid u ka xiran yahay ma jirto walillahi alxamdu saasaan ku soo gabagaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allahina abuurtay oo noo suura geliyay in aan furno noonigan meesha lagu ciyaarayo yarta oo Indo Soccer loo bixiyay Africa Indo Soccer wuxuu u furan yahay garoonku dhammaan bulshada aan isku hadalna af Soomaaliga oo guud ahaan Soomaalida aan ula jeedo iyo dadka kale ee maxaa dhihi jiray aan Soomaalida ahayn ee diriskayna way ku ciyaari karaan waan ognahay dad badan oo ku dhasheen wadanka South Africa oo ilmo yar u badan ilmaha yarka qaasatan waxay u baahan yihiin inay ku bixiyaan enerjigooda ciyaar iyo in maskaxdoodu si ay u dhisanto sidoo macallin Saadam hore sheegay maskax fiyow jir fiyow ayaa maskax fiyow dhala macnaha marka waa mahadsantihiin waxaan leenahay qof walba ku soo dhawaada kaliya ma ahan in aad banooni ku ciyaaraysiin oo jirka ku dhisaysiin haddii aad u baahataan kulamo qaas ah iyo kulamo si guud xafladaha si guud waa ku soo dhawaada waxaan leenahay garoonku ma ahan kaliya waxaad doontaan ku qabsan kartiin waa garoonkiini haday ahaan leedahay xafladaha shirarka caadiga kulli guud ahaan waxaan leeyahay soo dhawaada dhalinyarta iyo ragga maanta nagala soo qayb galay xafladana aad u mahadsan yihiin waxaan leeyahay mahadayda ka gaarto waqtiga aad nala qaybsateen waan idinkaga mahadcelinayaa boqolkiiba waxa ugu fiican oo qofku bini'aadanka uu ku ogolaado waqtiga ugu wanaagsan in waqtigiisa qayb ka siiyo waa qayb kamida noloshiisa ku siiyay ana qofka bini'aadanka wax ka qaalisan waqtiga ma jiraan marka waan idinkaga mahadcelinayaa waqtiga aad noo soo horteen garoonkana ku soo dhawaada maanta ay tahay taariikhda bisha afraad 2021 waxaan aad ugu faraxsanahay annagoo ku hadlayna magaca jaaliyada Soomaaliyeed ee Western Cape in ganacsato Soomaaliyeed meeshaan nooga hirgeliyeen garoon macmala oo dadka Soomaaliyeed ay aad ugu baahi badnaayeen garoonkan waxa ka faa'iideysan doona dhalinyarta da'yarta hadda soo baxayso iyo dadka u baahan inay jimicsi sameeyaan iyo sportiska oo ah kaalin aad u weyn oo bulshada xiisa badan u qabtay waxaan aad ugu faraxsanahay waqtiga uu ku soo aaday
iyadoo dadka Soomaalida ay yihiin dad ugu baahiyaha badan xilliga la taagan yahay in garoonkan uu ku soo aaday waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Western Cape ku nool garoonkan quruxda badan ee ganacsatada Soomaaliyeed ay noo hirgeliyeen waxaa looga faa'iideysan doonaa sida garoomada kale ee caalamiga looga faa'iideysto wuu qurux badan yahay sidaad u jeedaan si qurux badan waa loo qalabeeyay waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in baahiyo fara badan oo qabnay qabashada xafladaha iyadoo aad aan ugu dib qabnay waagi hore waqtiyada oo aadna la kugu cariirin jiray sida ogtiin dadka Soomaalida waqti leeyahay xafladaha qabsadaan inta badan waqtiyada dambe xafladaha dhib aan ku qabi jirnay hadda maanta waxaan rajaynayaa maanta kadib insha Allah tacaala inaan helnay howl xafladaha aan ku qabsano soo dhaweynta haday noqoto amba xafladaha cawashada amba xafladaha guurka intaba waan ku faraxsanahay howl sidaan oo kale in la hirgeliyo waliba waqtigan la taagan yahay laga hirgeliyo South Africa Cape Town ganacsatada Soomaaliyeed arintan ka shaqeeyna aad ay ugu mahadsan yihiin waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa wabillahi tawfiiq